telefoon iyo markaasi tuug maxaa kala haysta nin ka mid ah asxaabta ku dhaqan magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa waxa uu sameeyay asagoo ku sugan xaafadiisa uu ka soo baxay albaabka markuu ka baxay ayaa tuug wax ka qaatay telefoonkii tuugii markuu ka qaatay oo telefoonkii tuuga marka sida caadaha way dimin jireen asagoo ma diin tuug xariif ah waxa jeebku saga rid soo wacda gabadhii ka qaban waay markii dambe uu fikiray fariin buu soo qoray wuxuu qoray 3 dalqo ayaa qabtaa jaw gabadhii marka fariintu soo dhacday alaabtii duubata guriga ayaan ku imaan buu yiri 3 dalqa qabtaa ka gurguriyay bas ninkii iska soo laabtay guriga ku soo laabtay wuxuu u yimid gabadhii oo alaabtii raranaysa oo ka guuraysa meeshiiba maxaa dhacay sitaan waxa ay tiri aniga waxa weeye waxa igu sameysay weligii isma dhihin ninkan kugu sameynaya sida aan ku jeclay sida ay jeclayd waxaan la yaabana maskaxda waxa duleeyay ee banay kaalaba ii qaba gaari ii qaban saartay ilaahay waxa weeye meel kale khayr ha iga tusay ninka ilaahay ay siiyay naa walaalay isdeji naa u kaadi ninkii sheekha wuxuu yaani kuma furin telefoonka tuugi uu waca marka gabadhii basoo xiran tahay oo shaki ay dhamaa qaribay tuugi uu waca warniyo salaam alaykum salaam saaxiibo waxa weeye xariifada wixii ma tiid buu yiri hadii wixii telefoonka iga qaadatay islaanteed maxay iga furtay wuxuu yiri wax waalan baa tahay waa kuna isteexinayay waxaan naag maahan wax loo yeertan maahan wariyaa wuxuu yiri inta jeer ay ku soo wacday konton jeer wax ka badan tahay buu yiri waxaan ma waxa lahayn karaa buu yiri naag ma waxaan anigu adiga ku ka duulaya wanaagaaga sameysay sida telefoonka uga samirtay ayaa aniguna naagtan xun kaaga diray marka ninkii waa adigu ka bacdi waa islaantii waa celceliyay marka xayraha kamid tahay marka jaceelka markii maaragtay inta badan uu yahay wax fudud oo qofkuna maaragtay uu isku bay haf noqdaasna iskala fudaas ka wixii liiras ka dhaco waa wax laga fiican yahay marka taasna waxaan wadan leeyahay asxaabta ku xiran janalkan dun jacel waxa kamid ah asxaab badan oo dabcan saan dareemi karo qaybaha ay ka kooban yahay jaceelku ku jiro dhamaantood laakiin waxa laga doonayaa in ayada oo qof ka taxadirayso waxa la yaabaa hadda goboladana Soomaaliya ku suganahay in qofka su'aalo kale aniga kale caaw hadii gabar aan waco oo la sheekayso hasaabo la galo hameen damana sidoo kale aan waco hameenka saddexaad hadii telefoonkayga ay gabar qabato ama si kale u dhacan qalad dhaco go'aan bi qaadanaysa go'aankaas oo ah blog inaysan mar dambe la hadlin hadii aad weydiiso ku dhaxartay magaalada tiraahdo maxaa dhacay telefoonka maxay qaban weysay yaa akhay walaashay maxaa dhacay xulada in aad naagaha isku soo lamaanisid oo aniga itijaabisid waa wax aan ka filanayn heer xataa maanta waxay sheekinayaan yar saaxiibkayga oo runtii asxaabta kamid wuxuu yiri xaaskayga wixii aan tijaabinaya baa wixii telefoon hadda soo baxay oo dabcan telefoon yararka hadda baa wixii codka wuxuu leeyahay qayb ah man iyo woman ku qoran tahay marka qaybtii woman kan taabtay baa iyadoo la hadla seeta halka waraa jaaw hameenkii marka imidba waxa ka soo horeysaba bangad maxaa dhacay aniga miyaa sirahayga uga sheekaysay gabadha telefoonkaaga soo siisay oo sidii aan isku ogeyn dhan iga sheekaysay oo xataa gaartay heer arrimii xaafadda iyo arrimii duruufta xaaladeeda inay la hadasho heerkaas maray Soomaan ifur marka waa ka digaya taasna waxa weeye haddaan nahay bahda dun jacayl waa ka digayna arrimaha noocaas oo kala waana waxyaabo soo batay dabcan filmo iyo riwaayadana waa ka sameyn doonaa arrimahaasi hal laga digtoonaadaan leeyahay markastana qofka jaceelkiisana inuu ka dambeeyo si sax ah heer xataa waxa la gaaray jaceelka qofka markuu ka shakisid aadan dareensiin wax shaki ah taasna waxaan fira gaar ah ugu digayaa dhalinyarada in ay markaasi siiba gabdhaha rag badan oo badnaba laakiin siiba gabdhaha go'aanka degdeg ah qaataan mar walba waa laga fiican yahay talo iyo tusaalana halkan ayaan ku soo gudbin doonaa buug weyn aan ka qoranay arrimahaas kala xiriira dabcan aan ku soo gudbin doonaa qayb 1 iyo qayb 2 iyo qayb 3 ilaa qayb 5 maartay 15 ilaa 60 bagaar intaas 50 60 70 qayb ay noo yeelan doontaa insha Allah inta ayaan ku soo koobayaa qaybta koowaad caaway halkan waxaan kala socodsiinayaa Maxamed Cabdullaahi CD dhanka kamarada iyo sidoo kale editing-ka waa Joker mid la mid kulmi doonana saaxiibayaal waxaan nabalana subscribe-ka inaad saartaan comment share ku soo qabta si halkan ficlintiina anaguna aan in kula soo wadaagno insha Allah
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.